السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله شرفت بدن فرحد عافيماد قبي نولل wanaagsan baan idin rajaynaya muuqaalka waxaan ku soo qaadanaynaa afartan waligood laga dhargin isla markaana aan laga xiisa dhicin ee aan laga daalin afartan laba waa in la badsado oo aragtida caafimaadku waxay ku soo bandhigaysaa laba inaad badsato laakiin iyagoo sidaa daruuri u ah laba in la yaraysto ayaa aragtida caafimaadku ay taageertaa bal waxaynu eegaynaa afarta marka koobaad dadku aanay ka dhargin ama aanay ka xiisa dhicin ama ay jecel yihiin waa cunista iyo cabista hurdada iyo galmada afartaas ibni aadanka way jecel yihiin laakiin laba haddii la badsado waxa ka dhasha dhibaatooyin labada la badsado iyo labada la yaraysto ayaynu ku soo qaadanaynaa muuqaalkan labada la badsadaa waa hurdo kugu filan oo fiican inaad seexato cabitaan kugu filan waliba biyaha cad inaad goor kasta aad cabto caafimaadka jidhkaaga ayay u fiican yihiin hurdo kugu filan haddaad seexatana oo mar kasta hurdadaas aad ka dheragtana caafimaadka jidhkaaga ayay u wanaagsan yihiin labada la badsadaa waa biyaha cad ee cabitaanka iyo hurdada labada basashadoodu waa mid dhakhaatiirtu ay kugu dhiirigelinayaan oo xilli kasta iyo waqti kastaba ay kuu soo bandhigayaan labada la yaraystaa waa galmada iyo cuntada cuntadu haddii ay badato dhibaatooyin baa dhaca qofka waxa ku bata inuu cayilo oo markaa uu noqdo qof faada ama weight inuu noqdo miisaankiisu uu bato taasina ay ka dhalato qofkii markaa in jidhkiisii ay xanuuno ay ka dhalan karaan dufankii ku badan karo wadna xanuun uu qaadi karo mar kastoo cunto aad cunto waxa ku jira waxyaabo jidhkaaga dhibaatayn kara oo u baahan jidhka in laga saaro in beerka markaas uu khashin badani fuulo oo sidaa xanuuna ku qaato cuntooyinka oo aad yaraysataa ama cunto isku dheeli tiran aad qaadataa ayay dhakhaatiirtu ay ku soo bandhigayaan qaybta kale ee galmadu waxay ka mid tahay waxyaabaha bulsho ahaan aynu jecelnahay ama dadka ku abuuran inay markaa baahida ay gutaan in baahida la gudo oo la jeclaado waa arrin la taageersan yahay waana arrin caadiya waana arrin jidhku u baahan yahay laakiin qofku inuu badsado dhibaatooyinka ka dhasha waxaa ka mid a in markaa awooddiisii ay daciifto oo qofkii shaqo maalmeedkiisii uu gudan waayo oo awooddiisii markaa ay noqoto mid hoos u dhacaysa intaas ayaynu ku soo ururaynaa ee la sii wadaaga bulshadeena kale wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu